su-aasheena kale haddaynu u gudubno maxay ku sugan tahay haddan xaaladda Oromiya iyo shacabweynaha Oromiyaba wallaahi Oromiya maanta waxa ay ku sugan tahay waxa la saaray xukun military ayaa la saaray cadaadis waxa ka socda deegaanka Oromiya dil dhac boob kufsi iyo barakicin ballaaran ayaa ka socota maamulka dawlad deegaanka Oromiya Cabdikariin waxaan ku weydiinayaa TV-ga Qayro Ganama bal macnaheeda noo faahfaahin TV-ga Qayro Ganama macnaheedu waxa weeyaan dhalinyarada Qayro ee soo bilowday halganka Oromada waa duuduub waa magac duuduuban marka wuxuu soo bilowday halgankaasi 60meeyadii 12 bishii 12aad 1962 ayuu soo bilowday waxa uu ka soo bilowday magaalada Muqdisho ayuu ka soo bilowday marka waxa kamid ahaa Sheekh Abdulkarim Ibrahim Hamid Sheekh Charre iyo Dr. Sheekh Maxamed Rashad Abdulle Sheekh Bakri Sabalo iyo culimaaddin kale oo waaweyn oo magac ku leh shacabweynaha Oromiya gudaha iyo dibadaba oo wax soo bartay oo ururkaasi ku soo aas-aasay caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho Qayro Ganama macnaheedu waa taasi TV-gana waxa la yiraahdaa TV-ga Qayro Ganama waa Cabdikariin aad baad u mahadsantahay su'aasheena labaad ee su'aasheena kale haddaan u gudubno goorma ayaad is oran kartaa xasuuqan iyo dilkan iyo dhacan iyo boobkan iyo xarigan shacabka Oromada lagu hayo waqtiga ayuu ka joogsan karaa wasleed wallaahi aniga waxay ila tahay dilka iyo dhaca iyo boobka iyo kufsiga iyo barakicinta iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ku habsaday deegaanka Oromiya waxa uu ka joogsan karaa uun hadii macnaha dadweynaha Oromadu ee jooga gudaha iyo kuwa dibadda jooga gudaha iyo dibadda jooga gacmaha inta isqabsadaan halgan dhab ah oo kama dambaysa hadii ay sameeyaan oo ay ka xoroobaan cadawga iyaga haysta ee cadaadinaya ee iyaga u heshiiyay hadii ay ka xoroobaan oo kaliya ayay dhibaatooyinkaas oo dhani ka joogsanayaan laakiin hadii aan la heshiin oo aan la midoobin oo aan guda iyo dibad hal meel looga soo wada jeedsan oo aanay ul iyo diirkeed isku wada noqonin dib kama joogsanayo oo sii soconayaaba ila tahay aniga waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay